halkan aanu taagannahay waa guriga magaalada Hargeysa ka degan yahay macallin Baasha Aadan Haybe oo kamid ah macallimiinta ka howlgala magaalada Hargeysa waxa uu habeenkii xalay baraha bulshada ku baahiyay in tacaadi iyo jirdil loo geystay isagoo sheegay macallinkaasi in muddo 12 cisho ah aanu ka bixin cabsi daraadeed gurigiisa waxaan ku booqan doonaa hooygiisa oo kan ah waxaan weydiin doonaa cidda jirdilka u geysatay ee uu tuhmaayo iyo waxa ku kalifay inuu 12 cisho aanu dibadda u soo bixin ugu horeyn ku soo dhaw telefishinka Ariel waxaad bulshada la wadaagtay in jirdil lagu geystay cidda jirdilka ku geysatay iyo arrimaha aad u tuhmaysaa waayo way bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan mahadsantiin bahda telefishinka Ariel TV aad baan idinku mahadcelinayaa booqashadiina aad igu timaadeen soo ajiibteen markaa codkii markaa aan diray bulshada reer Soomaaliland markaa u diray aad baad ugu mahadsantiin su'aasha aad weydiisay waa mid meesha ku jirta ciidan tuhusanahay waxaan ku sheegi doonaa muddo 15 sanadood baan macallin ahaa iskuulada Al-Huda hay'adda Al-Huda ay maamusho ayaan 15 sanadood macallin ka ahaa waxa dhacday bishii toddobaad 16 in shaqadii ay la iga saaray aniguna markaa shaqo ka saaristoodii aan aqbalay wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada aan dacwad aan xuquuqdeedii 15 sanadood aan ku doonayo aan u gudbiyay jawaab celintii ay soo celiyeen markaa bahdii hay'adaas madaxda ka ahayd kulankii koowaad ee dacwadda oo u mudaysanaa markaa wiiga dhamaadkiisii 23 bisha 2021 habeen salaasa ah 8 barkii habeenimo ayaa xaafadda barka anigoo soo socda ayaa gaari nooha ah laygu weeraray gaarigaasi oo ujeedkiisu marka hore ahaa inuu jiiro laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa iga nabadgeliyay meel burciida aan ku dhacay ka bacdi gaarigii uu iskay soo dhinac taagay albaabka dambe dhinaca bidixda la furay afar nin oo maas xidhan ay ka soo degeen isla markaa ay jirdil igu geysay dhabarka iga tunteen iyadoo marka hore dhabarka gaarigu iga dhacay oo marka dhaawac aan ka dareemayay mobilkan gacanta ugu haystay baan ku wada hadad mobilka u baahantiin hooya anigoo markaa de nafxaraarihii markaa hadalkii iga soo baxay mid ka midii wixii igu jawaabay markaas oo xoog igu markaa laadii la dhacay yaa kugu yiri hay'adda dacwee waxaan u celiyay maxaa tiri yaa kugu yiri hay'adda dacwee ka bacdi gaarigoodii bay ku noqdeen gaarigii wuu dhaafay lambarkiisii si wanaagsan ayaan markaa uga buuxsaday ciidan tuhunsanay hadaba waxa weeye ciidan isdacweynay kow gaariga oo gawaaridii meesha ka shaqeynaysay gaari kamid ah aanu aqoonsaday lambarkiisu yahay 48695 oo si wanaagsan u aqoonsaday waana gaarigu gudoomiyaha waxbarashadu ka haysan jiray laakiin nimankii markaa saarnaa soo degay laadka ila dhacay marka iyaga aanan wajigooda si fiican uga buuxsanin ciidan tuhunsanay waa intaas warkooduna waa cad yahay bahda amaanka ayaan u tagay saldhiga Axmed Dagax taliya waraabe ayaa jooga waxaan u sheegay markaa dhibtay soo gaadhay gaariga la jirsiyay iyo lambarkii intaba waan u sheegay laakiin taliyuhu wax rafeertay musliimkan ku dhaawacayaan qaba waxaan u baahanahay inaan dhakhtar tago wuxuu igu yiri markaad bararto ama dhiigada ayaa haynoo haato taasina iyaduna mid labaad oo aniga wajiga waxay ku noqotay bahayd ilaa muddadaas wixii kasta gaarigi kasta daba mara iyo naftaydii de waxaan tabayay markaa oo aad ugu baqan qabay inay markaa mushkiladii ay markaa igu xeeran tahay xalay u dambeysay waraaq markaa rafa oo gal warqadeeda ayaa markaa aqalka lagu soo dhex tuuray anoo markaa u haysta inay waraaqdu tahay waraaqdii leedka xaafadan ku wada soo qaada waraaqda xag sare waxa ku qoran from calaamad su'aal baa taali waan idin tusi waraaqda marka la furo hoosteedana habeenkii dhaweed waa naga badbaadi laakiin haddana calaamad su'aal kale taasina
waa war iska cad oo labadii laba isku tegaya oo waa runoo ilaahay baa iga nabadgeliyey maalintaa dhaweytoole saasaan markaa kuu sheegayaa wariye macalin baashi waxaad eedeynaysaa hay-adda alhuda oo maamusha iskuullo waxaad sheegtay inay 15 sano muddo ka badan aad iskuullada hay-addaasi ay maamushaad macalin ka ahayd kadibna shaqadii joojin ay kugu sameeyeen kadibna aad dalbatay sharciga ah in xaqaagii aad heshid maxaad ku cadaynaysaa in hay-addaas arrimahan ku saabsan jirdilkaaga oo ah inay gaadhi ku jiirsiiyeen sidoo kale haddii aad caddayn haysatid arrimaha ku saabsan iyo hay-adihii ammaanka arrintaada ma u gudbisay hay-addii sidoo kale maamulkeedii ma la xidhiidhay horta caddayn uma baahna mar haddii la yidhi maxaad hay-adda u dacwaysa waa cid kaloo dacwad horta naga dhexaysay uma jirinba taasina waa dacwad madaniyaho waa wax sharciya oo qofku raaco waxaana lagu horreysiiyeyba intaanan dacwadda u gudbinin ka hor inay xaqsiintii waafaqsanayd in laysiiyo tana waraaqdanoo kale abaan u gudbiyey hay-adda intaana xataa wasaaradda tegin walow aanay wax jawaaba iga soo siinin ta kale waxaan maadaama igu yidhaahdeen maxaad hay-adda u dacweysay dee taasi waxa weeyaan cidda dacwadda u dhexaysa waa iyaga ta labaad laanta ammaanka dee kolley saldhiggan axmed dhagax degmadanu ka mas-uul yahay markaa waa halka koowaad waa cidda koowaadee soo qabanaysa ee loo dacwoonayo ee haddii uu qofku dhaawacan yahay rafeertada ka goosanayo iyagana waan u tegey oo ciddii u horreysay aan ugu tegey bay haayeen iyaga oo markaa anuu aan filayey markaa inay ii jawaabaan in gaadhigii la dabagalo in isla daqiiqadiiba la helo waayo askarta wardoonka iyo ciidanka bilayska iyo roondadu intuba xilli fiiday haydo si wanaagsan bay u heli kari lahaayeen marka iyagu waxay uga gaabiyeen iyagaa markaa la weydiin doonaa taliyo wuxuu igu yidhi insha allahu caddaymo kalena waad heli doontaa wax hadala intaasuu igu yidhi taliyo waraabe tiraba 3 jeer ayaan rafeertadana ugu noqday oon ku idhi markaa rafeertadaasi dhaawac baa igu yaala tiina way iska dhagamariyaan markaa dhakhtar madax bannaan baan u tegey Hargeysa X-ray sawir bay iga qaadeen dawooyinka ayay ii soo qoreen dhaawacaas ugu yaala waxaa intaa markaa ka sii darayd in gacantii dareenkii ilaa halkaa maanta imika ilaa halkaa aanay wax damqasho aanay lahayn taa markaa mushkiladda igu sii keentay waxa weeyaan dhaawicii inuu intii kaba fogaaday oo intii ay laftu ama jiidhku uu waxqabay ay dhaafsiisan tahay ay neerfihii ay waxqabaan oo gacantaydii aanan waxna ku qaadi karin waxna aanan iskaga qaban karin koobka biyahaabaa ayaa ugu fududo iyo weysada midna kuma qaban karayo markaa dhaawacay guuladda heerkaasu gaadhsiisan yahay laanta ammaankana waan u gudbiyey wax jawaabana imay soo waxaad dalbatay xuquuqdaadii oo ah 15 sanadood macalin ka ahayd wasaaraddii shaqagelinta hawshaas qusaysana waad u tagtay hay-addiina waad ku socodsiisay hawshaas maxay kaga falceliyeen markii hawshaas aad dalbatay hawshaa waxay kaga falceliyeen jawaab celintoodii waxay noqotay inaanan muddada 15 sano aanan kaba shaqayninba meesha kow lacagta mushaharkiin qaadanayo $440 ahayd iyadana waxay sheegeen mushaharkaana iyadana inaanan qaadanin oo iyadana xaqsiinta waxa lagu saleeyaa hadba sanadkiiba waxa lagu dhuftaa mushahar bil mushaharkeed oo $440 aan xaqsiintaydii aan markaa aan ku saleeyayna way dafireen iyada oo lacagtii saada iyo dahabta ee la dhex martay in hay'adu iyaduna ay cadeymaheedii jiraan oo aan imikadan xaqla ku hayo wasaaradana aan u gudbiyey labadiiba saasay u dafireen waa mid labaad 6 bilood baa jirta oo iyaguna mushahar aanu lahayn oo in iyadana aanay nasiinin sanadkii 2019 bishii 3aad 4aad 5aad 6aad 4 bilood iyo bishii 6aad ee sanadkan iyo 2020 iyadana 2 bilood oo ku dhex jiro min haaf mushahara inta midna inaanay nooga jawaabin taana iyadana ay ku dafireen waxa la wixiiba inay bixiyeen intaas dheerad xuquuqda lacagtaasi oo xuquuqda oo dhan $17,116